911, what is your emergency? habeenkii February 19 1997 namarka gaaban ee emergency-ga 911 ee ka shaqeeya magaalada yar ee Sulphur Springs ee Florida ayaa helay wicitaankii telefoon ee waliba ka badnaa. qofka soo wacay ee magaciisa aan la sheegin ayaa ku andacooday weerar ka dhacay deriskooda inta uusan arkin qof haweeney oo xagga guriga loo sii jiidayo. markii uu soo wacay ciwaanka ma jirin qof ka shakiyay in booliisku gurigiisa jabin doona nin lagu magacaabo Lawrence Singleton. ku dhawaad 20 sano ka hor meel ku dhow Del Piero Canyon ee Florida lamaana ku jiray bishii malabka oo baabuur watay ayaa si aayar ah u istaagay si ay u caawiyaan gabar yar oo wadada dhexdeeda socod. naxdin darteed lamaanaha ayaa ogaaday in labada gacmood ay ka maqan yihiin. markii la keenay cusbitaal u dhawaa gabadhii 14 jirka ahayd ayaa u sheegtay booliiska in ninka sidan ku sameeyay uu ahaa Lawrence Singleton. waxaan ku iri fadlan isiida oo isna wuxuu yiri ma doonayo inaan ku sii daayo waan ku xoreyn doonaa. laakiin markii la xukumay kadib markii dhibanaha si geesinimo leh hortiisa ugu marqaati furay maxkamadda Lawrence Singleton wuxuu ku yiri erayo iyada oo aan cid kala maqlin. in yar waxaan maqlay isaga oo ilaa hadii ay tahay waxa uu dambeeyo ee aan sameeyo ama waan dhameystiri doonaa shaqadii. 8 sano kadib Singleton ayaa laga sii daayay xabsiga sababtoo ah dhaqanka wanaagsan. hadii uu tan ku sameyn lahaa qof kale kama badbaadi lahayn. September 7 1978 lamaana ayaa ku sii socda wadda cidlaah ee u dhow Del Piero Canyon ee Florida. ahaantii looma maleynayo inay jidkaas marayaan haba yaraatee lamaana ku jira bisha malabka waxay si qaldan ugu leexdeen waddo dhamaadkeedu yahay cidlo. wadadan ayaa ah cidlo malahan wax nalalka wadooyinka waxa kaliya wadada iftiiminayo waa nalka gaarigooda sidoo kale iyo iftiinka dayaxa. jawiga ayaa ahaa mid aamusan shanqar aan lahayn iyo mugdi. markii ay si lama filaan ah u arkeen qof jidka dhex maraya markay u soo dhawaadeen waxay ogaadeen xaqiiqatan inay ahayd gabar yar waxay gacmaha kor ugu haysaa si yaab leh. aad ayay ugu soo dhawaadeen waxay arkeen inay wada dhiig tahay gacmahana laga gooyay. waxay ku qaylineysay inay istaagaan si ay u caawiyaan. way u soo degeen waxayna heleen telefoon u dhow waxay waceen gargaarka degdeg ah. gabadha ayaa degdeg loogu qaaday hospitaalka u dhow. ma garanayno inay hospitaalka nabad ku tagi doonto waayo kala bar dhiig jirkeeda ayaa daatay. markay hospitaalka imaadeen waxaa si degdeg ah loo geeyay qaybta gurmadka degdeg ah. dhaqaatiirta horay uma arag weligood bukaan sidan ah. waxay u shaqeynayeen si xad dhaaf ah si ay isugu dayaan bal inay badbaadiyaan wixii ka haray labadeeda gacmood iyagoo ka jaraya qaybo kamid ah jirkeeda kale. gabadhii si mucjiso leh ayay u badbaaday. waxaa la geeyay qaybta recovery-ga iyadoo soo kabanaysa. markaa booliiska ayaa halkan ka soo galay arinta si ay u wareystaan waxa dhacay. waxay leedahay ma garan karo kani inuu ahaa shil ama nooc weerarada kamid ah. gabadhu waxay booliiska u sheegtay in magaceeda uu yahay Mary Vicente oo nin ayaa isku dayay inuu dilo. gabadha ayaa booliiska kala shaqaysay dhanka farshaxanka si loo sawiro sawir gacmeed isku dhaf ah oo u dhow qofkii weerarka geystay intii macquulka ah. waxaana markaas booliisku aadeen goobta uu dambigu ka dhacay oo ay gabadhu sheegtay. booliiska aad ayay u cabsadeen markii raadkeeda soo raaceen oo dhiig badan dhulka daadsanaa ilaa duurka. dambi baaraha ayaa ii sheegay inay dib u raaceen dhiigayga. booliiska waxay ka fakarayaan sidee waxaan ugu dhici karaan gabar 14 jir ah. sawirka farshaxanka ee gabadha laga sawirayay ayaa la dhameeyay waxaana lala wadaagay warbaahinta iyo bulshada. dadweynaha markay ogaadeen waxa ku dhacay Mary aad bay uga naxeen uguna caroodeen inuu jiro qof halkaas ku nool oo bulshadooda kamid ah oo tan sameyn kara. wuxuu ahaa fal arxan daran oo qalbi lahayn oo aan la rumaysan karin. waxay ahayd mucjiso Mary ay ka badbaaday. laakiin shaqada adag ee Mary ee sawirka farshaxanka ayaa ahaa mid aad u faahfaahsan oo la fahmi karo. kaliya waxay ku qaadatay booliiska 10 maalmood in la soo waco. qof haweeney ah ayaa soo wacday oo leh sawirkan waa qof deriskayga ah. booliiska ayaa isla markiiba soo qabtay ninkii ku eedeysnaa dilka Mary laakiin wuu diiday. wuxuu sheegay inay ka shaqeyn jirtay xarumaha galmada inay ahaayeen 3 qof isaga iyo iyada iyo saaxiibkiis. booliiska sheekadaas uma cuntamin. Mary waxay go'aansatay inay ku marqaati furi doonto. Mary waxay ku wajahday maxkamadda iyadoo rabto in ciqaab la marsiiyo. dabadeed waxay u tilmaamtay qalabka suuxdinta
waxaan filayaa in qof walba qalbigiisa istaagay. markii ugu horreysay ayay Mary ka sheekaysay sheekada wixii habeenkaas dhacay. sheekada Mary waxay bilaabatay maalin ka hor 29 Sebtembar 1978. waxay go'aansatay inay tagto magaalada Modesto, California, halkaas uu awowgeed ku noolaa oo qiyaastii u jirta 83 mayl oo baabuur ah ama qiyaastii saacad iyo bar magaalada ay degneed. kadib waxaan imaaday meesha gaariga laga raaco. dad baa ila socday iyagana gaari rabay, balse waxaa dhinacayga soo istaagay gaari buluug ah oo hal qof waday. balse wuxuu yiri hal qof baan qaadayaa. waxaan isku dayay inaan raaco, balse dadkii kale ayaa idhahay ha raacin. laakiin wuxuu ila muuqday qof weyn oo awoowo oo kale ah. laakiin waxaa niyadeyda ku jiray oo kaliya inaan guriga dhaqsi tago. waan daalanaa, isna wuxuu u muuqday qof weyn. ugu dambeyn gaarigii waan raacay, wuuna i kaxeeyey. Mary oo aad u daalneed way ku dhex huruday gaariga. markii ay kacday waxay ogaatay in jiha qaldan u socdaan. waxaan ogaaday in calaamada wadada ay kala duwan yihiin jihada aan u soconno, oo waxaan ku iri bal eeg waxaad ku socotaa wada qaldan. oo ninkii wuxuu ii sheegay inuu yahay nin daacad ah oo qalad daacad ah sameeyay. kadib wuxuu yiri waxaan u baahanahay musqul. markaabuu duurka u sii leexiyay gaariga, wuuna ka tegay. xagaag waxaan ku jiraa dhibaato. markaas baan hoos u eegay oo kabaha ayaa laga furay. balse waxaan ku fikiray bal haddii aan ka baxsan karo, balse waan yarahay oo waa qof weyn isaga. waxaan si fiican u xirtay kabahayga, albaabka ayaan furay. markaas buu bir madaxa iiga dhuftay oo indhaha ayaa i madoobaaday. kadib wuxuu igu xiray dhabarka dambe ee gaarigiisa. wuu i jir dilay habeenkaas oo dhan ilaa subaxii dambe. kadib wuxuu ii sheegay inaan noqon doono inantiisa wanaagsan. wuxuu u hadlayay sidii aniga oo ka mid ah carruurtiisa. wuu seexday, balse waan baxsan waayay gebi ahaanba, sababtoo ah waan xirnaa. taasi waxay ahayd dareenka ugu xumaa ee aan dareemo. laakiin si aan u fahanno baaxadda dhibka, waxa ay ka gudubtay dhibaato si ay u sii noolaato. waxaan geli doonaa tafaasiisha garaafooyinka qaarkood ee fadlanka digtoono. wuu isoo saaray. waxaan weli ku jiraa meel dhexe. waqti kasta waan baryayay fadlan isiidaa keliya i xorey, ma sheegi doono. wuxuu yiri ma doonayo inaan ku sii daayo, laakiin waan ku xoreyn doonaa. oo wuxuu ka soo saaray qasnadiisa qalab uu gacanta midig iiga gooyay. gacantayda ayaan hoos u eegay, igumaba taalo. waxaan isku dayay inaan la dagaalamo, balse wuxuu qaatay gacantii kale ee bidix. waxaan bilaabay haraanti iyo qaylo anigoo rajaynaya inuu qof i maqlo. wuxuu ka gooyay labada gacmood inta ka hooseysa xusulkeeda. Mary waxay ku dhacday dhulka si degdeg ahna way u dhiig baxday oo way suuxday. markii ay soo naaxday kadib waxay dhahay waxaan u maleynayay inuu u maleeyo inaan dhintay, sababtoo ah dhulka ayaan ku dhacay, mana dhaqdhaqaaqin. wuxuu igu tuuray dhagax 30 madax leh. markaan dhagaxa ku dhacay ayaan 4 feerood ka jabay. ninkiina meeshaas ayuu kaga tegay meyd ahaan. laakiin ma oga inay weli nooshahay. ma garanayo inuu isugaayo, laakiin xaqiiqatan halkaas aad ayaan ugu dhiig baxay ilaa waxaan gaaray inaan dhimasho ku sigto. waxaan rabay inaan seexdo, laakiin waxa aan maqlay waxay ahayd cod oranaya ma seexan kartid. wuxuu igu sameeyey kufsi. waan ogaa haddii uu tan igu sameeyna inaan ka badbaadi doonin. markaa waxaan u kacay sida ugu dhaqsiyaha badan si aan u helo caawinaad. sidaa darteed Mary way kacday oo waxay ku fikirtay inay dhoobo qoyan raasato si bal dhiigbaxa uu ugu istaago ama uga yaraado. waxaan dib uga gurgurtay dhagaxii, inkastoo ay mugdi ahayd halkaas si dirqi leh ayaan wax u arkayay. laakiin waxaan maqlayay dhawaaqa traafikada. waxay ka soo roonaanaysay miirbeelkii, waayo xaaladeeda weli normal ma ahayn. waayo dhiig badan oo ka baxay aad ayay u tabardarneyd. laakiin aad ayay u dadaashay oo waxay gaartay inay socoto 3 mayl ilaa jidka ay ka imaato. taasi ayaa ahayd rajada ugu weyn ee ay lahayd waqtigaas. waxay ku socotay wadada hareeraheeda iyadoo rajaynaysa inuu qof un helo. ugu dambeyntii si lama filaana ayay u aragtay gaari nalkiisa soo ifaya. waxaan u qayliyay si aan u joojiyo gaariga si la caawiyo. waxaan ka fakarayay haddii ay ku arkaan dadkaas oo ay ka cabsadaan
waayo dhiig fara badan ayaa jirkayga oo idilka baxayay amay kaa tagaan oo aad halkaas ku dhiman doontaa ayaan la walaacsanaa. waxaa yimid gaarigii nalkiisa aan arkayay, waa lamaanihii ku jiray bisha malabka. waxay arkeen Mary oo isla markiiba gaariga ayay ka soo baxeen oo waxay ka caawiyeen inay hosbitaal geeyeen. markii ay Mary dhamaysay warbixintii ay ka horjeedinaysay maxkamadda horteeda, laakiin ninka weerarka geystay ayaa lagu xukumay 14 sano oo kaliya. garsooraha ayaa yiri, haddaan awood u lahaan lahaa inaan ku xukumo waqti dheeraad ah, haa waan samayn lahaa, laakiin wuu awoodi waayey. wuxuu helay 14 sano oo kaliya oo ah sharciga Mareykanka ka jira. markii aan maxkamadda ka soo baxayay, waxaa la marsiiyey meel wax yar ii jirta. waxaan maqlay isaga oo ileh, haddii ay tahay waxa ugu dambeeya ee aan sameeyo, waan dhammaystirayaa shaqada. wuxuu igu hanjabay inuu idili doono markuu soo baxo. waxay isku dayday inay nolosha sii wadato, laakiin waxay la dhibaatoonaysaa xanuunka depressionka ay ka qaaday weerarkaas. Mary waxay ku dhibaatoonaysaa inay hesho lacag ku filan, sababtoo ah dhaawaca gacmaha awgiis waxay ku qasban tahay inay cusboonaysiiso gacmaha macmalka ah sanad walba, sababtuna qiimaha ayaa aad u sareeya, mana awoodo. balse nolosha Mary ayaa isbedeshay. waxay heshay jacayl oo way guursatay. waxay dhashay 2 caruur ah oo ay aad u jeceshahay, laakiin marar dhif ayay ka hadashaa weeraradii loo geystay ee ku dhacay, sababtoo ah weligeed ma iloobayso. laakiin waxay wax walba isbedeli doonaan wax yar kadib 8 sano, waayo ninkii weerarka ayaa lagu sii daayay dhaqan wanaagsan. dhaqan wanaagsan ma garan karo sababta uu dhaqan wanaagsan u yeelan karo qof 2 gacmood ka gooyay 14 jir. Mary way argagaxday markay maqashay tan, sababtoo ah waxay ka cabsatay inuu sameeyo ballankii ahaa inuu dili doono, iyadoo ka baqaysa in Singleton oo soo raadiyo Mary mar kasta waxay eegtaa dhinacyadeeda. waraysi ay bixinaysay ayaa lagu weydiiyey, imise jeer ayaad guurtay sanadihii u dambeeyay? waxay ku jawaabtay wax badan. si ay u ilaaliso nafteeda iyo qoyskeeda, waxay ku nooshahay nolol cabsi badan. xitaa waxay raadadkeeda ka saartay internetka si uusan u helin. February 19 1997 markii ay ahayd February 19 11 saac iyo 49 galabnimo, ku dhawaad 20 sano kadib markii uu weerarka Mary geystay. booliiska ayaa la soo wacay wicitaan naxdin leh. muwaadin walaacsan ayaa soo wacay isagoo sheegaya inay maqleen khaylo ka soo baxaysa guriga ninka weeraray Mary. waxay arkeen isagoo weeraraya haweeney, waxayna isla markii u carareen kaalin shidaal oo u dhow si ay nambarka gaaban ee booliiska 911 u wacaan. booliiska waxay yimaadeen abaaro 6:23 oo PM ah. waxay ku qaadatay 30 daqiiqo inay halkaas tagaan. Singleton ayaana ka furay. waxay sheegeen isla waqtigaas inuu u muuqday mid walaacsan. waxaa si lama filaan u soo dhacay telefoonkii gurigiisa. si uu u jawaabo ayuu u cararay. booliiska ayaana ka dabagalay gudaha. waxay ugu galeen qof meyd ah oo haweeney ah, waxaana lagu dilay mindi. isla markii waxay xireen Singleton oo ay keeneen xarunta si su'aalo loo weydiiyo. qaar ka mid ah booliiska ayaa wareystay deriska si xog ay uga helaan una fahmaan waxa dhacay. waxay ogaadeen inay tahay Roxana Hayes oo ah hooyo 3 caruur haysata oo uu gurigiisa ku dilay. Mary markay taas ogaatay way murugootay, waana cabsidii ugu darneed ee mar kale ay wajahday oo qof kale uu naftiisa ku waayi doono gacanta ninkan. sidaas darteed waxay u murugootay Roxana Hayes 3 maalmood oo buuxda. Mary booliiska ayaa ka codsaday mar kale inay maxkamadda uga sheekayso weerarkii uu ninku u geystay, iyadoo ka wakiil ah Roxana Hayes, si ninkan aanu weligiis xabsiga uga bixin. mar kale ayay khatar geli doontaa iyada iyo qoyskeeda, waayo waxay qol la geli doontaa mar kale ninkii horey u weeraray. laakiin way ogeed in halkaas ay tahay maxkamadda, balse waxay ka cabsanaysay in mar kale uu soo baxo uu dilo ama dib u soo raadiyo. ugu dambeyntii waxaa lagu xukumay xabsi daa'im. Maryna waxay ku nooshahay nolol qurux badan oo ah sida ay rabtay. maanta Mary waa fanaan, waa u doodaha dhibanaha, waana dhiirigeliye, waana aasaasaha Mary Vicente Foundation. ugu dambeyntii waa inay caawiyaan caruurta iyo dhalinyarada ka badbaaday xadgudubyada galmada.